رئيس الوزراء حكومة الصومالية حمزة عبد البره ayaa ishtika ka ah ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya muhiimadda iyo nuxurka iyo waxa keenay in mas'uulka labaad ee ugu sareeya dalka uu cabasho ka yahay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka. Halkan ayaan kugu soo gudbinayaa sidoo kale waxaan kula wadaagayaa caddeyn itus oo itaabsi ah kuna saabsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo si cad u sheegaya in cabasho uu ka yahay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. muuqaalkeena haddii uu ku soo gaaro si gudbi laygare sheergare oo la sii wadaaga asxaabtaada. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inta aan galin faahfaahintiisa iyo cabashada uu ka yahay askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya sababta cabashadiisa iyo waxa salka ay ku hayso waxaa marka hore kula wadaagaya qayb ka mid ah hadalka uu kaga caawinayo ciidamadan ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu sheegayo in qaati uu ka joogo isla markaana ay sameeyeen waxyaabo la yaab leh oo marka aad maqasho dankaadana aad la yaabi doonto si kooban aan u dhageysano. waxyaabaha dhibaatada weyn igu ah waxa weeye inaan arko jidadka oo xiran oo la xirayo wardaaya haddaan nirina nimanka askarta diiday kar weyne marka waxyaabaha dhibaatada weyn igu ah waxa weeye inaan arko jidadka oo xiran oo la xirayo. waa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xamse Cabdi Barre oo aan ku maqashiyay qayb ka mid ah hadalkiisa waxaana qaybta dambe ku fasaxi doonaa warkiisa oo dhameystiran ama muuqaalkiisa oo dhameystiran oo uu ku sheegayo arrimo khatar ah oo ciidamada dowladda ku saabsan dhankooda iyo waxa uu xilligan kaga cabanayo. waxa uu sheegay in uu ku taliyay wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho in aan laga xirin shacabka Soomaaliyeed marka wadanka ay imaanayaan ajaanib rabta in ay soo booqato dalka la kulanto mas'uuliyiinta dowladda iyo marka ay wadanka ka baxayaan mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka sida ra'iisul wasaaraha, gudoomiyaha baarlamaanka, madaxweynaha ama xitaa marka ay booqanayaan qaybo ka mid ah magaalada. waxa uu sheegay in ay ka biyo diideen oo ay ka dhaga adeegeen arrinta ah in aan wadooyinka la xirin ha yeeshee ay ku qanciyeen hal arrin oo ah in khatar aad u weyn ay ka jirto magaalada nafsadoodana ay galaafan karto haddii ay dhex maraan shacabka ama ay dhex galaan. waxa uu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed waxaan ka baqayaa in ay nahabaaraan oo ay habaaraan marka wadooyinka laga xiro aniga oo meel booqanaya ama aniga oo ka baxaya gudaha magaalada. waana hadal sax ah oo shacabku waxa laga yaabaa inay inkaaraan ama qaarkoodba ay inkaareen mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya marka wadooyinka ay ka xirtaan iyaga oo danahooda kaliya fiirsanaya shacabkana aan u danqanaynin. ra'iisul wasaaraha warkaasi aad ayaa loogu bogaadiyay waana wax mudan in shacabka loo diirnaxo lana ixtiraamo oo aan wadooyinka laga xiran iyada oo meel la booqanayo ama wadanka laga baxayo. madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka ilaa iyo hadda lagama hayo war noocaas oo kala ah mana jirto meel ay ugu danqadeen shacabka ama meel ay ku sheegeen in ay qalad tahay wadooyinka caasimadda ah in laga xirto. ha yeeshee waxaa xusid mudan in ciidamada iyo saraakiisha ay u baahan yihiin in loo sheego ra'iisul wasaaraha waxa uu u shaqeynayo inay tahay shacab isla markaana waajib ay tahay in warkiisa la qaato oo aan shacabka wadooyinka laga xiran. waa mas'uulka labaad waana in haddii uu yiraahdo wadooyinka yaa laga xirin shacabka aanan la gelin tuhun iyo cabsi iyo shaki ah in khatari ay ka jirto gudaha magaalada. ra'iisul wasaaraha meel fiican ayuu taabtay waxaan rajeynaynaa in dadka kale ee madaxda ah ee wadooyinka ciidamada ku daadiya shacabka maalintaasi aan shaqo tagin caafimaadka u diida in ay doontaan in iyaguna ay ku daydaan isla ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. haddaba waxaa mar kale ka codsanaynaa in muuqaalkeena aad sii gudbiso laygareyso sheergareyso oo aad la sii wadaagto asxaabtaada kale haddii aadan ka mid ahayn inta nagu xiran hadda nagu soo biir.